daawadayaasha qiimaha leh waxaad ku soo dhawaataan xafladan lagu maamuusayay sanad guuradii 44aad ee ka soo wareegtay hanashadii qaranka Soomaaliyeed ee nasiib darro maanta burburay barnaamijkan oo ay soo agaasimeen ururada dhalinyarada magaalada Copenhagen Denmark ayaa si wadaninimo ku jirto isugu soo dubaraday xafladan dadkii badnaa ee xafladan ka soo qayb galay ayaa dhammaan waxa wajigooda ka muuqatay farxad iyo murugo labadaba dadweynihii ka soo qayb galay xafladan ayaa muddo 15 daqiiqo ah lagu ceshay laabtooda Soomaaliya kadib markii shaashad TV weyn oo darbiga suran ay ka daawanayeen Soomaaliya burburkii ka hor waxaa goobtaas ka hadlay dhalinyaro badan iyagoo halkaas ka muujiyay shucuubtooda wadaninimo waxaa barnaamijka daadihinayay laba wariye oo ka socday idaacadda afka Soomaaliga ah ee magaalada Copenhagen ee loo yaqaano Radio Copenhagen maxamed abshir oo mikrofoonka ku soo dhawaada dadweynaha Soomaaliyeed ee iyagu halkan jooga ama dhageysan doonana waxaan filayaa inay iyaguna fariintaasi si fiican u fahmaan barnaamijka bartamihiisii ayaa waxaa masraxa fuulay fanaan la yiraahdo Ina Dalmar halkaas oo uu ka qaaday dhowr hees oo Soomaali ah mudan in la sheego Soomaaliya ku 884 magaalada Berlin ee dalka Jarmalka in loo qeybiyay shan qaybood shantaas qaybood oo qayb Ingiriis la siiyay oo loo bixiyay British Somaliland qayb Talyaani la siiyay oo loo bixiyay Italian Somaliland qayb Jarmal la siiyay Jarmal ma aha Francis oo leeyahay Jamhuuriyadda Djibouti qayb Ethiopia la siiyay oo ah dhulka Soomaalidu ee Ethiopia ee kaliya loo yaqaan ama Soomaali galbeed ama Ogaden qofka la soo rabo qaato iyo qaybta ugu dambaysa oo ah qaybtii la raacsiyay waddanka Kenya oo loo yaqaano NFD ama North West qaybta koonfur bari aanado markii inta loo qaybiyay waxa dhacda marka xorriyadda dadka dhammaan intaas Soomaalidu way dagaalamayeen marka laba cadow ay kala dagaalamayeen cadow Islaam oo markaas ay dagaalami jireen oo ah cadowga Axmaarada oo Axmed Gurey iyo dad taariikhda soo qaataan rag Amir Nuur iyo waxay ahaayeen rag la dagaalamayay cadow
la dirisa oo aan dagaalkooda dhammaan marno colaaddoodana ay weli taagan tahay oo u dhexeeya laba qowmiyadood oo Soomaali iyo Ethiopian ah ama Amhara ayaa كذب وحن عاود درين فرحت يا مروج سؤول فاقن كحسينا مالنتي هو قيمة ويني مالن صومرت أمضى الصوماليات ويران مدة لبقر ويران مدة لبقر 100 أو كوبيعن كود اليوليو أما عندنا كود اليوليو أما يوم الشرف عنا قلنا هذا haddii aanu nahay shacbiga Ogaadeniya ma hayno ereyo aanu ku xarri karno kumana koobi karno qiimaha iyo qaayaha maalintaas kooda luuliyo waxaanu dhignaa ma jiro walaalayaal iyo saaxiibayaal waxaan in badan ka hirqannay ama ka dharagnay taariikhda halgankii loo soo maray xorriyadda iyo midnimada Soomaaliyeed inta halyay u geeriyootay inta marwo u agoontowday inta maata u rajowday inta xafiyada ku indhabeeshay oo soo marin halgankii lagu hantiyay xornimadii ummadda Soomaaliyeed ee dhacday 26 Juun iyo 1 Luulyo wuxuu qof kasta ogaan karaa halgankii dheeraa ee uu soo maray ururkii SYL ama la oran karo Somali Youth League ee ay ku xoreeyeen ummadda Soomaaliyeed halgankaas oo ka hana qaaday koonfurta Soomaaliya iyo waliba waqooyiga Soomaaliya oo uu ka hana qaaday xisbigii la oran jiray SNL ee ka hirgalay goboladaasi waqooyi oo Ingiriisku u gumaysan jiray xilligaas ugu yaraan walaalayaal labada xisbi ee SYL iyo SNL waxay ku guuleysteen inay xoreeyaan mideeyaan labadii jeex ee koonfur iyo waqooyi oo Talyaani oo nacaba iyo Ingiriis oo cadowa ay kala gumaysan jireen walaalayaal leego ama SYL bahadaan ay dhahdo waxa lagu aasaasay xamar waxaana aasaasay dhalinyaro kaliyeeyo ah geesiyaal ah wadaniyiin ah oo rag ka soo baxay waxay soo baxeen xilli heeriyada la ogolaaday karaamo laga samray loona maleeyay in cid aan gumaysiga reer Yurub ahayn qiimo yeelan karto loona haysto in Ilaahay ba iyaga la jiro xilli aan loo hawoon karin in dawladnimo cid aan cadaan ka ahayn aysan haysan karin hasa ahaatee labada xisbi ee SYL iyo SNL ayaa ku abardiiday waxayna u gurmadeen shacabkoodii dhibaytaysan xilliga horowgii iyo midowgii labada waaxood waa koonfur iyo waqooyi dhalashadii jamhuuriyadda Soomaaliya taagidii calanka buluuga oo ay ka dhaxnuurayso xidig shan gees ah oo ifaysa astaan xidhiidhnada la leh dareenka iyo labxashada hoose ee qof kasta oo Soomaali ah waxay ka dhignay maalintaas in odaygii Soomaali la oran jiray uu maalintaas dhashay dhisid qaran madax banaani buuxda haysta oo xubinka qaramada midoobay ururka midowga Afrika jaamacadda Carabta iyo ururo caalami ah oo kala duwan waa haydad iyo sharaf aanay jirin wax gooya walaalayaal allaha wada lehna waxaanu ka tuugi inuu dib u samata bixiyo qarankii Soomaaliyeed marlabaad walaalayaal ya saaxiibayaal haddaan nahay shacbiga Soomaalida Ogaadeniya ee wali ku hoos jira heeriyada gumaysiga madow ee xabashida waxaanu ku noolahay xaalad ka adag tii dadka